tan iyo dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay waxaa dagaal faraha loogu gubtay uu dhex maray dalalka kale ah Azerbijan iyo Arminiya kaasi oo ku saabsanaa gacan ku haynta gobolka Nagorno-Karabakh. in ka badan 300 oo qof ayaa ku dhintay halka kumanaan kalena ay guryahooda ka barakaceen tan iyo markii uu bilowday dagaalkaasi. labada dhinac waxay isu jeedinayeen eedayn ah in dagaalka midba midka kale uu ku soo qaaday. khilaafka iyo gacan ka hadalka labadan dal ayaa soo bilowday horaantii 90-meeyadii. dadaalo fara badan oo uu horkacayay Ruushka ayaa suurtagelisay in Arminiya iyo Azerbijan ay ku heshiiyaan xabad joojin ku meel gaar ah kadib dagaalkii labada dal ee gobolka lagu muransan yahay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku dhawaaqay in xabad joojin la kala saxiixday kadib 10 saacadood oo labada dal ay ku wada hadlayeen magaalada Moscow ee dalka Ruushka. wasiirka ayaa sheegay in haatan labada dal ay bilaabi doonaan wada hadallo muhiim ah oo lagu xallinayo khilaafka ka dhexeeya labadaasi dal. daawade haddii aad ka hesho warbixinada ku saabsan taariikhda fadlan like saar si aynu u ogaano. mahadsanid. warbixino laga soo xigtay ilo madax bannaan ayaa muujinaya in sanadihii u dambeeyay ay labada dal ee Azerbijan iyo Arminiya ay diiradda saarayeen maalgelinta militarigooda. Azerbijan waxa ay hal tallaabo dheer tahay Arminiya marka loo eego awoodda militariga. labadan dal oo horey ugu tirsanaa midowgii Sofiyeeti waxa ay taageero dhanka militariga ah ka helaan labaduba dalka Ruushka. Azerbijan waxa ay leedahay kayd shidaal dhaqaale badan oo ka soo gala ayaa waxa ay u suurtagelisay in iskaashi militari ay la yeelato wadamo ay ka mid yihiin dalka Israa'iil iyo sidoo kale dalka Turkiga. daraasad uu sameeyay machadka caalamiga ah ee u qaabilsan nabadda marka magaciisa la soo gaabiyana la yiraahdo Sibri oo uu fadhigiisu yahay dalka Sweden ayaa muujinaya in dhaqaalaha ay ku bixiyeen militariga Azerbijan intii u dhaxaysay sanadii 2009 ilaa 2019 oo ah muddo 10 sano ah inuu 4 jeer ka badan yahay dhaqaalaha ay geliyeen militariga Arminiya muddadaasi. sanadahaasi Azerbijan waxa ay ku bixisay militarigeeda dhaqaale gaaraya 50 bilyan oo dollarka Mareykanka ah halka Arminiyana ay gelisay ciidamadeeda xoogga dalka 20 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. tan iyo sanadii 2010 waxaa sare u kacay qarashka ku baxay militariga Azerbijan halka Arminiya labadii sano ee la soo dhaafay ay dhaqaale xooggan gelisay militarigeeda balse waa mid aad uga hooseeya dhaqaalaha ay gelisay xukuumadda Azerbijan. waxaana arrintaasi ugu wacan in dhaqaalaha Azerbijan uu yahay mid aad u xoog badan marka loo barbar dhigo dalka Arminiya. macadda tayada iyo baaxadda hubka Azerbijan iyo Arminiya labaduba waxaana soo ifbaxaya wararka ah in militariga Arminiya ay hubkoodu u dabaabuleen gobolka Nagorno-Karabakh oo ah gobolka ay isku haystaan labada dal ee Azerbijan iyo Arminiya. Azerbijan waxa ay kaalinta 64aad kaga jirtaa dalalka dunida ee ugu awoodda badan dhinaca militariga halka Arminiyana ay soo gashay kaalinta 111aad sida ay baahisay hay-adda fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ee la yiraahdo Global Firepower. warbixin la soo bandhigay sanadii 2016 waxaa lagu sheegay in taangiyada dagaalka ee Azerbijan ay gaarayaan inta u dhaxaysa 314 ilaa 750 halka taangiyada ay haystaan ciidamada Arminiyana la sheegay inay u dhaxeeyaan 100 ilaa 166. diyaaradaha dagaalka ee ay haysato Azerbijan waxa ay ka badan yihiin sida warbixintaasi lagu sheegay 100 halka Arminiyana lagu qiyaasay tirada diyaaradaha dagaalka ee ay haysato inay gaarayaan 60 diyaaradood. sanadii la soo dhaafay dalka Azerbijan waxa uu Ruushka ka soo iibsaday in ka badan 29 diyaaradood oo ah MiG iyo sidoo kale 11 kuwa ah Su-25. sidoo kale Azerbijan waxa ay haysataa diyaaradaha dagaalka ee kala ah Mi-24 iyo Mi-35 oo lagu farsameeyay dalka Ruushka. dhanka kale Arminiya waxa ay haysataa diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano nooca Su-30 iyo sidoo kale MiG-29 kuwaasi oo ay ka soo iibsatay dalka Ruushka. ilaa iyo hadda lama xaqiijinin in uu Ruushka
hubka S-400 ka iibiyey Arminiya, waxaana la ogaa in Arminiya ay adeegsato gantaalada S-300 iyo sidoo kaleete kuwa la yiraahdo Tor M2KM. mid ka mid ah gawaarida dagaalka ee loo yaqaano UAV ayay labada dhinac isu adeegsadeen dagaalkan bishani dhacay. Arminiya waxay adeegsatay gaariga loo yaqaano AUV oo ay iyadu samaysatay, halka Azerbaijan ay isticmaashay gaariga UAV oo ay ka soo iibsatay dalka Israa'iil. ciidamada Arminiya iyo Azerbaijan waxay isu adeegsadeen hubka lagu soo sameeyay dhanka Ruushka. kadib sanadii 2016 Azerbaijan waxa ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku soo iibsanayso agab military, taasi oo ay ugu gool lahayd inay ku qalabayso ciidamadeeda militariga si dagaal ay u galaan hadiiba lagu qasbo. dalalka ay hubka ka soo iibsatay wadanka Azerbaijan waxaa ka mid ah Israa'iil iyo Turkiga, sida laga soo xigtay macadka daraasaadka ee Sipri. 17% agabka militariga ee ay Azerbaijan dibadda ka soo iibsatay waxa ay ka keensatay dalka Israa'iil. sanadii 2012 Israa'iil iyo Azerbaijan waxa ay kala saxiixdeen heshiis military oo ku kacayay 1.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. waxyaabaha uu dhigayay heshiiskaasina waxaa ka mid ah in Azerbaijan la gaarsiiyo hubka kala ah UAV iyo gantaalaha lidka diyaaradaha. Azerbaijan waxa ay leedahay kayd shidaal iyo gaas, kaasi oo u suurtageliyay in dalalka qaar ay ka soo iibsato agab military. Arminiya waxa ay qaaday tallaabooyin ay ku xoojinayso militarigeeda. Ruushka wuxuu dhowaan siiyay Arminiya gantaalada balastikada ee la yiraahdo Iskandar iyo sidoo kaleete diyaaradaha dagaalka ee nooca Su-30. Arminiya waxa ay shaacisay in raadaarka militariga ay adeegsadaan ee lagu ogaado diyaaradaha ee la yiraahdo Iswathi ay ka soo iibsatay Hindiya iyo Arminiya ayaa dhowaan yeeshay iskaashi dhanka militariga ah. heshiiskaasi ay wada gaareen labada dal ee kala ah Hindiya iyo Arminiya waxa uu dhigayay in labada dal ay iska kaashadaan agabka militariga, iyadoo qarash ahaan uu ku kacayo heshiiskaasi 40 milyan oo dollarka Mareykanka ah. daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa isbarbardhigii aynu ku sameynaynay ciidamada militariga ee ay kala leeyihiin labada dal ee Azerbaijan iyo sidoo kaleete Arminiya. tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.